علي جولاوي حرير كل صو سمين أما كسر جيدو حرير كل صو سمين أنا نما كدت كاسنا كسر جيدان هيرشبيل وما سنتها ويجرتا نمن سياسيين وحلبان هرو بدن ومحن كويرادا هيرشبيل إن لغها يقعما إني كحران ربو وحرير إلى سو سمي واجران أنا أيق إلى مسو حريرين نجنا عصدا نود حي إيجو دنيناي إن محن كويرادا مدحوينا هيرشبيل تيرم كيس إيمان إدكيس أنت كدم إن بوق لغفر دنيناين مركا أنيجا maxaan ku yiraahdaa warkii waaba cadi haybo wax qarsoonba ma aha aniga maxaan ku yiraahdaa ninkii ii soo direen oo ganacsada ah waxaan u sheegay nimankaas isdaalin dadkooda iyo qabiilkooda kuraas soo diidi inay kudla badbaado iyo wax la mid ah xilligan aasaasin ay dhahan oo waliba dagaal lagu jiro oo madaxweynaha furunta u joogo ceebay ku tahay nimankaas haday waxa sameeyaan siyaasadda way ka dhacayaan baabuurka tareenka siyaasadda waa ka dhacayaan sababtoo ah waxay u dambeyn doonaan kuwaas inay kawaanka malaay xamarweyne ay shaqo ka helaan oo ay maxaan ku yiraahdaa malaayga jarjaraan ama inay biibitooyin furtaan sababtoo xilligan xilli maamul goboleedoo dhan la mucaaradi kara ama dowladda federaalka la mucaaradi kara ma aha xilligeeda lama joogo dagaala lagu jiraa hirshabeelna kuma sii jirto madaxweynihii wuxuu joogaa maxaan ku yiraahdaa furuntan shabeellaha wuxuu joogaa madaxweyne ku-xigeenkana furunta wuxuu joogaa hiiraan uu joogaa labada furnaa la iska horkeena howlaa socod xilligan may leeyihiin kudla badbaado oo hirshabelle aan sameynaya wax la badbaadanaya maxay yihiin iyagaa naftooda badbaado u baahan futushaariyaashii ay 6 sano ka hor ayagoo xildhibaano ay wateen koolo ku noqday maxamed shiine maxaa ka jira ayaamahan dhow ayaan dhaxaas waxaa warbaahinta sii daysay in xil lagu magacaabo arrintaas maxaa ka jira wax ka jira mara walaalkay aada maasantiin waa su'aal wanaagsan laakiin xil hadda aniga aan doontay ama leh magacaaba uma jira haddii jiri lahaydna anaa warbaahinta la wadaagi lahaa shaqana waa haystaa fiican oo hadda xil iyo waxba kaga mabaahna maxamed shiin waxaa tahay shakhsi hirshabeelle waqti badan ku bixiyey dhismaheeda koowaad iyo dhismaheeda labaad hirshabeelle maxaa xil lagaaga magacaabi lahayaa ilaa iyo haatan oo in badan muddan aad ku dhex jirtay taasoo iska caddaha walaalkay xil anaanba doonaninba maxaan ku yidhahdaa madaxweynahan ku kallifi maayo wax hadda maxaan ku yidhahdaa baagamuudana ima hayso hadda shaqalaana ima hayso marka aniga iyo madaxda hirshabelle waxaan kuwada soconayna dan ma aha waa maslaxadda guud inay maxaan ku yidhahdaa meel fiican ay ka marayaan oo ay horumar wanaagsan hirshabelle la tiigsanayna ii muuqato waxaan kaloo rabaa inaan halkan fursaddan ugu faa'iidaysto wasiirada hirshabelle waxa la rabo inay siyaasadda madaxweynaha iibiyaan waa iyaga war wasiiro madaxweynahan idinkaga xishoonaynaa dhaliilihiina ma sheegno ka shaqeeya danta ummadda inaad suud iyo futushaari soo xiritaan oo aad guryisame iyo maxaan ku yidhahdaa doorbin iyo liida aad wareegtaan macno ma samaynayso idinkagama xishoonayna hadda kadib madaxweynaha hirshabelle waa ku qasban tihiin waa inay siyaasadda madaxweynaha aad hirgelisaan oo aad deegaanada tagtaan oo aad shaqaysaan xililkan aad u wadatiin inaad gabdhaha ku shukaystiin ood gabdhaha been ugu sheegtiin oo wasiir hebelan aad tirahdeen macno ma samaynayso meesha waa inaad banaysiin haddaad waxba qaban karin maxamed shiin waxaa tahay shaksi oo baraha bulshada aad loogu yaqaano oo maxaa la sheeg at least markii oo hal sawir ama hal busti oo soo busti gareeyo dadka kugu xiran oo baraha bulshada isticmaala ay dhaqsaba falcelin badan ay ka bixiyaan qaarkood commenti fiican oo maxaa la sheeg oo dhiirigelin hore usoo ay ku dhahaan qaarkoodna ay ku dhahaan caytan iyo waxyaabo oo negative ay ku dadkaas waa maasan tahay dadka laba nooc aan kala saaraynaa dadkii dhiirigeliya qalbigan ka ogsoonahay waa mahadsan yihiin kuwii caayana waxaan leeyahay maqaarkayga waa adag yahay wax oo maxaan ku yidhaha ma soo doonan lahayn inaan warbaahinta imaado ama aan siyaasadda soo aado ma samayn lahayn haddaan caay iyo wax lamid ah ka baqaayo maqaaxidaan furo lahaa oo maxaan ku yidhahdaa muufada iyo biriiska lagu kariyo waxaan anaa soo doontay xaqay u leeyihiin wixii afkooda soo qabtay inay sheegaan kuwa i dhiirigeliyana qalbigaan ka ogahay waa u mahad celinaa
si gaarna waa ula xiriiraa waa mahadsantahay ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa Hirshabelle oo adi matashido oo shaqooyinka badan u qabatid maxaa leedahay waxaan leeyahay waxaan u kala qaadaynaa laba nooc aan kala qaadaynaa bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dawladda federaalka la shaqeeyo madaxweyne xasan sheekh waa yimid termkiisii labaad oo joogaa wadanka dib u xoreyna ku jira ha laga qayb qaataan leeyahay bulshooyinka Soomaaliyeed bulshada reer Hirshabelle waxaan leeyahay anaga Hirshabelle aan la yiraahdaa laba gobol aan nahay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenna haysana waqti si halala shaqeeyo waa ku kalsoonahay qabiil Soomaaliyeed hala dulmiyay inaysan isku raacin madaxweyne ku xigeenka ama